السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاليغا خاليغا دمانتي والإسلام يلوب أدونك أكجوكتانو وولاشينو مهاروني مركليتود بريز كنالكيغا داكاي سبسكرايب لايك كومنتي ديري جيلينتا واحد جينا maanta maxay inoo wadaa qiso noo wadaa qiso ku saabsan sida aad ka aragteen teetalka qoraalka qiso samarka iyo faa'iidada uu leeyahay qisadana sidaan ayay ku bilaabanaysaa wiil ayaa jiray wiilka 4 gabdhood la dhasheen iyo hooyadiisii aabiisa dhintay aabi markuu dhintay wiilkii wuxuu mas'uuliyad iska saaray hooyadiisii 4 gabdhood wiilkoo sida ku jiro oo gabdhihii maxay ahaayeen waxbarashadoodii cuntadoodii kafaalo qaadayo cid u soo shaqeynayo ninka gurigaba ahbo maalin maalmaha kamid ah waxay isbarteen gabar maasha Allah iyo gabar samar badan ah gabadhii markay isbarteen wuxuu ku yiri walaalay aniga hadda guur uma soo jeedo gabdhaha walaalay anigoon guurinin guur uma soo jeedo ee iga raali noqon markaas wuxuu ku tiri dhib ma lahan gurigiina qol iga deji cuntada cunaysiin il cunaya maxay ahayn gabdhahan waa ku garab istaagaya garabkaaga noqonaya adi sidii markuu wiilku ku ongalaaday gabadhii uu guursaday guriga qol ka soo dejiyay farxaday ku noolaayeen gabadhii way garab istaagtay ninkeedii waxay noqdeen dad isjecel oo maasha Allah farxad ku nool gabadhii markay garab istaagtay gabdhihii 2 gabdhood oo kamid ah soo weynaadeen waa la aroosiyay 2 kale haddana u hartay markaas ayada marka sanadee isqabaan waxay istiri ninkaaga hadda kiila ku furan gabdhahan uu mas'uul ka qaaday marka intuu gabdhahan oo maxay ahaayeen guryahooda ay ka kala galayaan iska samar ha ku furin kiil kale ilmo raadis ah shiba iska dhahda marka sidii iskaga joogtay labadii gabdhood oo kale aroosiyay markaas ayada aabaheeda dhintay dhaxal ay heshay marka waxay istir markaan waa dhigi karta ilmo raadis aan rabaa hooyadiisna way joogtaa way la nooshahay gabadhii marka hooyadu waxay u noqotay gabdhihii ee dhashay gabar ugu fiican adi lacagtii u sheegtay waxay tiri intaan ahaaya ilmo aan raadsano maxay ahaayeen asagan wuxuu yiri intaan ahaaya gabdhihii gabdho fiican ay noqdeen ayagoo gabar kasta oo kiste haysay keentay adi dhakhtar lagu geeyay dhakhtarka marka la geeyay marka noolama sheegin ma ayada xanuunsaneed ma asaga xanuunsanay dhakhtarka marka la geeyay ilmiya lagu soo abuuray 2 ilmood oo mataana ah 2 ilmood uurkii maasha Allah si farxad leh ku dhameysatay way umushay markii umushay ilmiya la cararay waxa la yiri saalada emergency la geeyay cashan saalada degdeg la geeyay saalada degdeg marka la geeyay wax yar kadib ilmihi way dhintay labadoodii way dhinteen xabada ka maarin ninkii oo soo baxay gabadhii uu imaaday wuxuu ku yiri walaale samar ilmihi way dhinteen ilaaha shalna si hadan ilaaha ishtay musoo arki karay tir ilmaheeda soo aragtay meedkoodii soo aragtay way ku samartay ilaahay bedel kale khayr qaba ka rajaysay gurigeeda iskaga soo laabatay hadda buugi marka maxaa ka xirmay ilmo raadiska ahay waxay istir wixii ahayseen dhan ilmahaas geliseen ilmihiin ilaaha oofsaday sidii marka buugaas dhan iskaga soo xirtay shiba iska gurigeeda iskaga nooleed ay maalmaha kamid ah habeenay wuxuu ku riyootay 3 malaay oo caloosheeda galayso qisadii wixii la wadaagtay sodohdeed iyo maalmaha caga u riixaysa wuxuu ku tiri hooyoy xal waxaan ku riyooday 3 malaay caloosheeda galaysay maanta malaay hadaan dubin ka waran markaas maamadu waxay tiri haye maamadu baxay suuqa tagtay malaayga soo gaday horena waxay u soo gaday testiga oo uur kale iskaga baaro hore u soo gaday wuxuu ku tiri kan test iskaga qaad uur waa maamadu marka maamo aqli badan oo aqal u saaxiib ahayd oo diintan aad u taqaano marka waxay tiri test isku sameey gabadhu waxay tiri wax dhalimaysid adoo lagu abuuro ma hadda wax dhali karta adoo caadi ah geedkii meel iska saartay kadib maamadii malaayga soo dubtay meeshii ku wada cuneen 2 isbuuc markay ka soo wareegatay waxay tiri ma tijaabisid bal geedkan iska tijaabi way tijaabisay calaamad gaduud oo waadix ah calaamad gaduudka markay yartaa ilmaha waa wiiga yar ah kayada waa 2 bilbo gaduud waadix ah waayo way la soo carartay hooy waxa indheyga miya masruun waa ifiri way fiirisay ninkeedii tustay dhakhtar loo balamiyay dhakhtarkii markii la geeyay wuxuu yiri gabadha uur leedahay oo 2 bil ah sidii uurkeedu ku wadatay markaas ma oga wax caloosheeda ku jiro markii umushay maxay umushay 3 ilmood umushay 3 cunug ee dhashay oo mataana ah 3 cunug oo mataana markii dhashay kadib haddana ilmo kale uurkooda yeelatay way dhashay haddana ilmo kale uurkooda yeelatay way dhashay ilmihii afraad hadda uurkooda leed markay qisadan soo gudbinaysay qisadan waxay ugu soo sheekaysay macalimadeeda
gabadha naftirkeeda macluumadeeda ugu soo sheekaysay waa qiso dhab ah oo hadda dhow dhacday oona samarka ah maanta qisadaas idinla wadaagayay gabadhii ilaahay wuu u nimceeyey 3 mataanuu siiyey ilmo kaloo siiyey ilmihii afraadii mar dhow dhali rabtaa marka maasha allah samarka faa'iidada uu leeyahay gabadhaas sida u samartay ninkeeda garab istaagtay ninka nin xun ma nin fiican u ahay farxaday ku wada noolaayeen alxamdulilah maantana farxad waa ilaahay uu kaamilay marka qisadaas aan idinla wadaagayay inta hadda soo gaarto waa mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.